السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي في الله، عاوة وسلاسة بشر ربيع الأول نوح مريسا شنية طبعا كن أفر بغل كوية أفرتن عاوة حندوني يا إن الذين سوق بيو درس جيني كوية طبعا كتاب كينيها المبادئ الفقهية على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. عاوة درس جينا وحو كسب سيهاي أحكام الإسلام. عاوة حنبرالينا أحكام الإسلام، أحكام الإسلام كا مسوي مركب أحكام الإسلام كتراهان انتوي أحكام الإسلام كتراهان وحلا قيبيا شن تودا وحلا كليرادا الفرض، السنة، المباح، الحرام، المكروه. شن تودا عاو وحن أبرانينا مدمد هدان حكم كوري أحكام تان صوتاتو وحلا يرادا الفرض. فرض محلا يرادا فرض وحلا يرادا ووح أي واجب تهي أما أي واجب كتهي عد كستو قانقارة إني سميسو وفلوغا وذا باهي أي واجب نكتهي قف كستو قانقارة إنو لي مادو هدو قفك لي مادنا أبا المرين يأجب إلهي سينيا هدو قفك لي ما واينا إلهي سبحانه وتعالى عقاب يدنبه إلهي سبحانه وتعالى أرى عليا هدان سأشك لأقدبو فرضك يمسنو عيالو قيبيا ولي waxaan ku jirnaa xukunkii u horeeyay faradka waxa loo qaybiyaa laba nooca ugu horeeya waxa la yiraahdaa fardu kifaaya, nooca labaad waxa la yiraahdaa fardu ayn iyo fardu kifaaya. labada fardi ayaa jira, labadoodaba waa wax ay waajib tahay ku tahay qofka inuu sameeyo, balse laakiin waajibka waa kala duwan bal faa'iideyso oo baro. fardu ayn waxa la yiraahdaa waa wax waajib ku ah qof kasto marka qaangaara. qof kastoo qaangaara waa shay looga baahan yahay inuu sameeyo oo marnaba uu dayirsan karin, marnaba uu fududaysan karin, marnaba uu iska dayn karin. hadduu sameeyana ilaahay uu ka ajirsiinayo, hadduu ka tagana ilaahay uu dambi u raacanayo. kaa waxaa la yidhahdaa fardu ayn. fardu ayn waa wax aan marnaba la iska dayn karin, marnaba la fududaysan karin, marnaba laga tegi karin. haddii laga tagana ka tegistaa laga tagay dembi waa lagu dambaabayaa, haddii la sameeyana samayntaa la sameeyana waa lagu ajir helayaa. haddaan fardu kifaaya u gudbo, fardu kifaaya waxaa la yidhahdaa waa fal waajib uu ku ahaa ummadda oo dhan, waa fal waajib uu ku ahaa ummadda oo dhan, balse ummaddii qayb ka mid ah haddii falka ay samayso mas-uuliyaddii iyo dembigii ummadda inteedii kale wuu ka dhacayaa. haddaan tusaale soo qaato fardu ayn, tusaalihiisa wuxuu noqonayaa salaada qof kastoo muslima inuu tukadaa looga baahan yahay, laakiin ma oran kartid hebel baa tukaday aniga salaada hebel baa iga kaafiyey. ka waa fardu ayn. fardu aynna waa wax waajib ku ah qof kastana inuu salaada tukada looga baahan yahay, laakiin hebel baa ii tukaday ma suurtagelayso oo marnaba lagaama yeelayo. haddii aad salaada tukatana ajirkeedaa leedahay, haddaad ka tagtana ciqaabteeda iyo ajirkeeda iyo dembigeedaad markaa qaadanaysaa. haddaan fardu kifaaya tusaale usoo qaato wuxuu noqonayaa sida salaada janaazada in la raaco, salaada janaazada in la tukado waa fardu kifaaya, janaazada in la raaco waa fardu kifaaya. haddii aad salaada janaazada ay bulshada qayb ka mid ah ay tukadaan dembigii intii kale aan ogeyn wuu ka dhacayaa. haddii markaa janaazada ay cid raacdo intii kale ay soo hartayna dembigii wuu ka dhacayaa, oo waxaa dembiga ka eed qaaday oo ka xil qaaday walaaladood qayb ka mid ah ayaa markaa tukatay. waxaan u malaynayaa in la fahmay. haddaan u gudbo su-aashayna kale ama xukunkii labaad ee axkaamta islaamka waxaa la yidhahdaa assunna. sunna maxaa la yidhahdaa? sunna waxaa la yidhahdaa waa shay bannaan in la sameeyo, ama waa fal uu bannaan tahay in la sameeyo, ama waa fal uu bannaan yahay in la sameeyo. falka haddii la sameeyana waa lagu ajir helayaa, haddii laga tagana layskuma ciqaabayo, qofkii dembi kuma helaayo. waxaan u malaynayaa sunnadiina in la fahmay. sunnadu waa shay ama waa fal markiisii hore oo bannaanaa, qofka muslimka u bannaanaa, hadduu sameeyana isaga ajirka loo kordhinayo, hadduu ka tagana aan waxba lagu siyaadinaynin, dembina loo raacanaynin, aadna loo raacanaynin. waxaan u malaynayaa in sunnadiina la fahmay. sunnada haddaan tusaale usoo qaato waa salaada sunnaha ah ama soonka sunnaha ah. soonka sunnada ah haddaad adiga soonto micnaheeda ma aha anigana inay waajib igu tahay.
haddaan aniga soomo micnaheeda maaha inay adiga waajib kugu tahay haddaan aniga soomo dheefteeda anigaa qaadanaya haddii aan ka tagana aniga koley ajirna ma helayo laakiin dembina ilaahay ii raacan maayo koley waxaan u malaynaya sunnadiina in la fahmay haddaan usii gudbo xukunkii saddexaad ee axkaamta islaamka wuxuu noqonayaa maxaa la yidhahdaa almubaax mubaax waxaa la yidhahdaa waa fal markiisii hore oo banaana in la sameeyo ama in la iska daayo falkii haddii la sameeyana uu qofka uu sameeyana aan ku celiyo mubaax waxaa la yidhahdaa waa fal uu banaan yahay qofkii inuu sameeyo ama uu iska daayo qofkii hadduu sameeyo ama uu iska daayo ajirna ma helayo oo ciqaabna ma helayo haddii aan ku celiyo shaygaa uu banaan yahay haddaad maqashid waa shay in laga tagana banaan in markaa la sameeyana banaan haddii aad ka tagto iyo haddaad samaysaba intaba ajir iyo ciqaab midna kuma helaysid waxaan u malaynaya kaana in la fahmay hadduu shayga uu banaan yahay lagu dhaho macnaheedu waa saa dembi iyo ajir midna ma helaysid haddaan usii gudbo shayga markaa makruuh ah alxaraam shayga xaaraamka ah waa fal la isku diiday inaad samayso haddii aad samaysana dembi aad ku helayso haddii aad ka tagtana ajir aad ku helaysa wey haddaad noqoso shaygaa waa xaaraan inaad iskaga tagtaa fiican sidaasaad ajir ku helaysaa haddii aad samayso xaaraantii dembigeeda adigaa qaadanaya koley waxaan u malaynaya xaaraamtiina in la fahmay shayga haddaad maqasho waa la dhibsaday makruuh weye oo karaahiyuu leeyahay shayga makruuha ah waa shay ay banaan tahay in markaa laga tago waa shay ay banaan tahay in laga tago haddii aad ka tagtana ajir aad ku helayso haddii aad samaysana aanad dembi ku helaynin makruuh waa la dhibsanayaa haddaad maqasho waxaa fiican shaygaa waa karaahiya haddaad maqasho waxaa fiican inaad iskaga tagto haddii aad iskaga tagto iska tegista ama ka tegista aad ka tagtay ayaad ajir ku helaysaa haddii aad samaysana koley abaalmarin iyo ajir ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa kama helaysid waxaan u malaynayaa in la fahmay baaraka allahu fiik waa faa'iidaysatay walaaladaa u gudbi oo ha faa'iidaystaan waa faa'iidaystay eelkaaga khayrka la jeclow fadaalu cala alkhayri ka faacilihi qofka khayrka dadka tusiya wuxuu lebiya asagoo sameeyey marka baaraka allahu fiikum channelka ama linkigaana insha allah subscribe saara si aad markaa cashiradeenna dambe aad oga faa'iidaysataan ama uu idiin soo gaaro baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra sheer gareeya walaalada la wadaaga insha allah waayo khayrka waxaa loo baahan dadka inay isku faafiyaan waxaa loo baahan inay dadka markaa isgaarsiiyaan waxaa loo baahan dadka khayrka inay isku dhex faafiyaan baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu